qofku waxa waaye uu isduqeynaya waxa la dhahaa levelka saddexaad oo loo yaqaan post traumatic marka asagoo shaqadiisii gudanayo oo ku xanuunsanayo aad iyo aad macnaha dadka qaar Soomaalida waxay dhahaan qofkan waa qof waalida dhaqanta waxa la dhahaa dad maqashay qofkan caadi ma aha laakiin uu shaqeyn karaa ku soo dhawaada ilmaha waa barnaamijkeeni Duni Dumar maanta barnaamijkan waxaa martiin u ah Dr. Maxamed Daahir oo ah dhakhtar psychologist ah maanta waxaynu ka hadli doonaa xanuunada ku dhaca dumarka ee dhanka dhimirka ah Dr. ku soo dhawaada barnaamijkeena waan dhawayo mahadsantihiin karintaanan ka hadlin dhibaatooyinka iyo xanuunada ku dhaca dumarka ee dhanka psychologiga ah waxaan rabaa in bulshada si guud u fahanto horta waxa la yiraahdo psychology badana waxaan u aragnaa horta nafta xanuunsatay in la dhaho qofkan iimaan yariya ku dhacday iyo ilaahay muu ka baqo iyo waxyaabo noocaas bulshada si weyn uma fahamsana sida jirka soo u xanuunsanayba in naftuna u xanuunsan karto marka wax yar inaan ka fahmno waxa la yiraahdo psychology bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daawanaysa maanta meel walba aad joogtaan waan idin salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale aad waxaan bogaadinaynaa bahda miidiyaha oo maanta aan martida u nahay oo mar walbana jecel in ay ummadda u soo gudbiyaan Soomaaliyeed barnaamij wax ku ool leh oo ay macnaha ay ka faa'iidi karaan Soomaalida kana maanta wuxuu daaran yahay qaybta psychology-ga oo ku saabsan xanuunada dhimirka run ahaantii haddaan marka aan wax yar run ahaantii aan ka hadalno cudurrada dhimirka ama psychology-ga aniga background yaraan idin siinayaa waayo dadka qofka markay maqlaan psychology wax badan iyo psychiatry-ga isku khaldayaan si yar aniga psychologist aan ahay background-kayga waxa waaye badge waxaan qaatay psychology general psychology jaamacad la dhahay International University oo ku taalo wadanka Suudaan ka soo diyaariyay sidoo kale master aan diyaariyay jaamacad la dhahay Nilen University ayadana wadanka ku taalo isla psychology laakiin qaybta mental health-ga ah badqabka maskaxda loo yaqaan sidoo kale PhD aan ka qaatay jaamacad la dhaho Omdurman Islamic oo isla Suudaan ku taalo 2019kii isla fieldigan psychology iyadoo oo aan ka qaatay qaybta ayadana mental health-ga su'aal fiican aad weydiisay aragsan mahadsan tahay psychology-gu muxuu yahay intaanan u galin cudurrada dhimirka ama ku dhaco gaar ahaan gabdhaha ama dumarka psychology-gu waxa waaye si yar definition kooban haddaan oga bixiyo waxa waaye hab dhaqanka bini'aadamka ama falcelinta bini'aadamka waxa waaye behavior-kiisa la eegaya taasoo ay tahay qofkan muxuu waxa u sameeyay tusaale hadda adiga barnaamij aad igu yeedheen reasonka aad barnaamijkan u duubeysaan psychological la dhaho in uu bulshadu ka faa'iideysato laguna qeexo loona bidhaamiyo psychology-gu muxuu yahay psychology-ga marka waxa waaye hab dhaqanka bini'aadamka behavior-kiisa kaasoo hab dhaqankaas marna positive uu noqonaya marna negative positive markuu yahay waxa weeyaan qofku markuu nolol maalmeedkiisa si wacan u gudanayo shaqadiisa aadayo ka soo laabanayo haddii uu yahay dhakhtar goob jooga macalinimo waalid meesha wixii ka yaalay in uu macnaha si sax ah u gudanayo waa positive haddii uu intaa qaban waayo oo ay la soo dirsaan marka qaybta hadda labaad waayo oo soo socono oo ah cudurrada dhimirka mental illness la isku dhahaa waxa soo hoosgalaya depression waxa soo hoosgalayo anxiety waxa soo hoosgalayo oo ka beermayo inta ka hor wax la dhahay PTSD waxa waaye qofka in uu macnaha la kulmo culeysyo badan culeysyadaas maxaa waaye marka waxa la dhahaa PTSD waxa loo soo gaabiyaa post traumatic stress disorder maxay tahay culeysyada qaraxyada dhibaatooyinka bulshada waxa soo dhan jirka ay ragaadinayaan marka uu jirku buuxsamo haddaanan la helin qof psychologist ah oo sameynaya marka waxa loo yaqaan psychotherapy arinta hadda aan ku shaqeeyo oo dadka aanan ka soo saareynin caburisnaantaas qofku waxa waaye uu isduqeynaya waxa la dhahaa
levelka saddexaad oo loo yaqaano post traumatic. marka asagoo shaqadiisii gudanayo uu ku xanuunsanayo aad iyo aad macnaha dadka qaar Soomaalida waxay dhahaan qofkan waa qof waalida dhaqanta waxa la dad maqashay qofkan caadi ma aha laakiin uu shaqeyn kara laakiin wuxuu ku shaqeynayaa mar wuxuu taagan yahay wuxuu qarka u taagan yahay in uu macnaha meel ka dhaco oo ay macnaheedu tahay waxa weeyaan wuxuu waayi karaa qof uu jecel yahay ama wuxuu sugayaa wax maaragtay intan ku sii dhaqaajiyo si heerka saddexaad ama uu u gaaro schizophrenia waxa la dhahay waalida marka qofka inta uu gaarayo haddaan sugno waxay noqonaysaa macnaha meesha psychological ahaan burbura ka dhacay levelkaas inaan gaalnona ma rabo inta imaanin waa in marka mental health ahaan qofka loo hergareeyo waa in psychotherapy loo sameeyo waa in aan anaga ka hortagno prevention aan sameeyno awareness aan sameeyno si ayna qofkani maaragtay oosan anaga maxaan rabnaa in qofkan badqabkiisa aan ka talino gabar ha ahaato wiil ha ahaato ilmo yar ha ahaato qof weyn ha ahaato sababta keentay way marka aan leenahay psychologiga waxa waaye hab dhaqanka bini aadamka waaye oo maskax ahaaneed macnaha marka aad hadda dhaqmayso ama aad wax ku sameynayso waxa horeeya fikirka aad fikirayso maskaxda bini aadamka psychologiga marka la joogo waxa jiro unconscious waxa la unconscious waxa waaye maskaxda daahsoon maxaa waaye adiga memory-gaaga oo Ilaahay ku siiyay maanta waxay duubayaa ama image maanta waxaan ku soo maray caawa markaad seexato waxa dhici karta inaad ku riyooto ambaba aad reflex aad samayso taas waxa la dhahaa marka unconscious maskaxda daahsoon ama aqli baatin okay anaga maxaan hagaaya marka waxaan hagaayo psychological ahaan aaminaada aad conceptiga aad adduunka ka haysato haddii uu positive yahay waxaad noqonaysaa qof macnaha ku kalsoon nafsadiisa oo markaana ka gudbi karo waxyaabaha challenge-ga nolosha ee soo hormaray laakiin maxaa la yiraahdaa psychological ahaan resilience uu leeyahay adkaysi laakiin qofkani dhaawaca soo gaaray mental ahaan uma badqabo wuxuu bilaabayaa si uu marka uga helo awood caafimaad oo psychological ahaana inuu mandooriye isticmaalo asagoo oo is ilowsiinayo inuu xaaladan kaga baxo taana waxay u keenaysaa waxa loo yaqaano mental illness mandooriyaha inuu qofka isticmaalo waxa keenaya in qofka uu xanuunsanaado marka hore nafsiyan macnaha waxa keenayo in uusan adkaysi lahayn tusaale waxba hadda kula soo dirsay waxa lagu dhahayaa hebel ba waxa ku dhaceen adiga marka inaad adkaysi leedahay waaye adkaysigaas oo muxuu noqon karaa marka hore inaad iimaan ahaan aad waxaan ogtahay inuu Ilaahay keenay laba marka inaad ka gudbi karto waxaan aad aqbali kartaa la rabaa laakiin haddaad aqbali waydid waa issue-ga marka imaanayo qofku inuu ku fikiro asagoo isoogeeno gaari jiri karaa asagoo isoogeeno meel dheer ka dhici karaa marka waxa la dhahayaa qofkan ma caafimaad qabo mental health ahaan marka waa midda aan rabno maanta inaan anaga aan iftiimino aan dadka u sheegno maxay tahay dhibaatooyinka psychologiga ee ragaadinaya gaar ahaan dumarka su-aashiisaas u dhacaysa u maleynaya ayadana ma kor dhaceeno guud ahaan psychology intaas la dhahaa waan jeclaan lahaa marka in la isku xiro way bulshada baahi badan ay u qabtaa psychologiga wax badan markaan imaanay walow hadda ay dad ay soo bartay ay jiraan laakiin wadanka uu ku yar yahay stigma badanaa jirto oo qofka psychologiga in laga aaminsan yahay qof nooc kale ah ama asaga lafiisa waali ku dhow laakiin xaqiiqada saas ma aha sida malaariyada wax walba oo kugu dhaco cudurrada kale oo physicalka ku dhacay ay ugu dhacaya macnaha ha ahaato anxiety ha ahaado schizophrenia ha ahaato maaragtay qofka oo walaac dareemayo laakiin waxaa la rabaa mar walba in qofka aan laga cararin inaan la takoorin in si wacan loola hadlo la keerkareeyo psychotherapy ahaan loo adeegsado kadibna uu qofkaasi noqdo qof markaa imaan kara ama loo soo saarayo meel uu ku fikiri karo ama go'aamo ku qaadan karo waayo waxaan aragnaa hadda waxaa bilaabatay dad isdilayo mandooriyaha ama ha qaataan overdose waxa la dhaha jiro dawooyin waxaa jirta hadda soo baxay oo la dhahayo adaptation leh oo la dhahayo drug addiction dawooyinka qabatinka waaye kuwaasoo ay isticmaalayaan xataa dad dhakhaatiira isticmaalaya
macnaha hadda nin dhakhtar ayaan ku dhintay nin dhakhtar isticmaalaya isaga daroogo overdose waxa la dhahay qaadanaya macnaha tramadolka iyo waxaan hadda taabuga inta commonka ay dadka og yihiin way dhaaftay hadda betadine waxa la dhahay la isticmaalaa mararka qaar wax aan wadanka aalina banaanka laga keenaya waxaasoo dhan marka waxa waaye in ay iskaashadaan psychologiyiinta iyo psychiatrika iyo dhakhaatiirta kaleba si loo helo xal u helidda marka bulshada si loo badbaadiyo macnaha hadafka guud ama targetka la hiigsanayo maxay tahay in la badbaadiyo bulshada inay badbaadaan aad iyo aad si fiican marka haddii uu psychologiga qof kastoo naga mid u baahan yahay yani ciyaaladii ha noqdaan oo dadkii waaweynaa wadankii si u burburay dadkiina dhibaatadu way ku dhaceysay marka jinsiga ugu jilicsanna bulshada wuxuu ahaa dumarka oo yani dhacdo markii mashaakilkii ay dhacaanna dadkii oo dhibaatooyinka aadka ugu waaweyn soo gaarayna ayagay ahayn marka haddii uu maxaa la sheegay xanuunka dumarka iyo ragga uu ku dhacayaa xitaa cumriga uu kala duwan yahay marka dumarka xanuuno ayaga u gaar ah ma jiraan aad iyo aad horta psychologiga meel uu u nugul yahay ma jirto oo gaar ahaana laakiin waxaa la dhihi karaa gabdhaha maadaama dumarka ay xaalado fara badan malayaan gabadha mar waxa waaye hooyo ilmay dhalaysaa ilmahaas waxay u keenayaan xoogaha culeysiyay keenayaan mararka qaar waxaa jirta gabadha in dhaliin caadi ah normal ay marin oo ilmo lagu qalo operation lagu sameeyo stigma gooni ay leedahay qofkii in la dhaho si caadi ah may u dhalin operation lagu sameeyay marka psychological ahaan inay dareemto qof maanta oo dhan xanuunsanayo marka ayada oo phobiyadii qabto iyo naxdintii waxa dhici karto wax ka baxsan inay ku dhacaan macnaheedu maxay tahay way u nugushahay in ay dareemto niyad jab depression marka taasa waxay keenaysaa inay gabadha ay u nugushahay mar ay hooyo tahay mar waxa waaye qof kaligeed waxaa dhici karta intuu burbur ku dhacay culayska ugu fara badan wuxuu ku dhacay dumarka hadda inta u badan percentage-ka shaqeynayo lafaheeda waxaa dhici karta hooyooyin inay yihiin sidaa daraaddeed culaysyo fara badan oo ku imaanaya darteed iyo dhibaatooyinka qoyska oo hadda batay furniinka maanta meesha uu marayo aaday u fara badan tahay meesha laga yaabo in boqolkiiba ma garanayo statistics saxa aniga ma ka hayo laakiin in furniinka uu aad u badan yahay taasoo keenaysa gabadha marka in ay dareemto kalsooni darro iyo walaac dhanka ragga lafaheeda taasoo u keeni karto in ay xataa dareemto in aysan u qalmin mar labaad inay guur gasho iyadoo ka baqaysa in haddana la furo oo markaa bulshadiina waxa waaye hadallo fara badan heblamay guursanin guurkii ay ka daahday gabadhan waa lasoo furay maxaa lagu soo furay waxaasoo dhan waxay keeni karaan markaa in ay macnaha jileec psychological ahaan ay u jeelcaanmanaato taasoo keenaysa marka hadhow in ay gabadhan maadaama ay u diyaarsaneed wixaa ugu horeeyo oo uga yimaado ama walaac ha ahaado ama ha noqoto fikir khaldan ama ha noqoto in ay maaragtay gooni ay oga baxda bulshada waxa waaye way u nugushahay taasna waxay keeni kartaa waxa loo yaqaano markii psychologiga la joogo panic attack waxa la dhahayaa jirto ama halac wax la dhahayo macnaha baqitaan oo aan xadka ka baxsan qofka marka wuxuu ka baqayaa wax aan jirin haddaad aragtay gabdhaha waxay dhahaan cadowgeygaan jebinaya tiktok macnaha cadowga gabdhaha haddaad adiga hadda sii baadho cadow ma jiro laakiin waxa waaye wax ay maskaxda unconsciouskeeda ku jira qof la dagaalsaneen oo dhaha cadowgeyga jebi wiiligaa maarata wiilku dhahay cadow iga jebi macnaheeda waxay tahay psychological ahaan waay macnaha cadow badan ma jiro ilaa hadda waxaa arkaysaa gabar ninkeedii warwareegaysa waxay dhahay cadowgan saa ku jebinayna tiktok ay iska soo duubaysaa macnaha cid cadow ahna ma jirto cadow ama laakiin way aamintay annaga marka psychological ahaan waxaan rabnaa in maskaxdaas waxa la dhahayaa cognitive psychology jiro cognitive maxaa waaye fikirkaaga waxaan ku bedelaynaa waa kula hadlaynaa macnaha iyadoo la adeegsanayo techniques psychological ayaa waxaan rabnaa in aan ku sameyno fadhiyo fara badan oo lagu bedelayo maskaxdaada ma aha bedelitaan oo negative waxa waaye positive oo ah in uusan cadow jirin
kalsoonida personality-ga markii la qeexayo wuxuu ka kooban yahay qofka in uu marka ugu horeyso uu isku kalsoon yahay. sidaa daraadeed psychological ahaan waxay dhahaan niman oo macnaha markay ka hadlayaan personality psychology ama development waxa la dhahayo, nin waxaa aabba u ah la dhahayo Sigmund Freud iyo Abraham Maslow, nin la dhahayo iyo James Cook, James Watt, niman gaalo waay. laakiin annaga maxaan ka qaadanaynaa gaal xataa qofka asxaabta jinniga wax ka barteen marka qaar diinta markii la joogo. macnaha adiga waxaa ka qaadanaysaa waxa fiican. marka waxa waaye maadaama ay sameeyeen school of psychology wax cusub yahay ayaga inta u badan macnaha sameey. marka waxay leeyihiin reerka generationka macnaha is haysto aabba iyo hooyo aan isfurin ilaa maximum 50 sano isqabay, ilmaha ay dhalaan wuu ka awood badan yahay psychological ahaan ilmaha ay hooyadiis kala tageen. macnaheeda maxay tahay? adkaysi psychological ma laha, resilience ma laha. macnaha nolosha wuxuu ka qaadanayaa in uu baqitaan uu jiro, nolosha wuxuu ka qaadanayaa aaminitaan in uu jiro in ay dad dhibayaan, nolosha wuxuu ka aaminayaa in uu daciif yahay ama qof oo weakness la yahay, wuxuu ka aaminayaa nolosha in uu yahay qof aanan mudnayn in uu sii noolaado, wuxuu ka qaadanayaa concept in la necab yahay oo kale. marka maxaa qofkii uu cabursamaya? taana maxay noo dhalaysaa waxa la dhahayo psychopathic personality. psychopathic personality waxa waaye qof bulshada ku ah lid ayaa la dhahaa. qofka bulshada lidka ku ah maxaa la dhahaa marka? waxa waaye qof abnormal waaye, waa xanuunsan yahay psychological ahaan. xanuunka waxaa keenay marka 3 arrinaa keeni karto. mararka qaar waxaa keeni karto environment-iga uu ku nool yahay oo annaga macnaha waxaan dhahnay wadan oo burbur iyo dhibaatooyin aan ku noolnahay oo dhowr sano soo socday, more 20 sano iyo wax ku dhow ama ka badan. marka taa waxay sameynaysaa hadda wixii psychological ahaan aan idiin sheegay PTSD-da, post traumatic stress disorder, fikirkan goormaad dhiman doontaa ama qarax dhacaa ama kan sameeya wuxuu kicinayaa pressurekaaga. waa midda Soomaalida waxaa dhahayaa macnaha boqolkiiba markii la isku celceliyo 50-60 meelaha waxaa dhici karta inaanan dhaafin. waa sababta keenaysa culeysyada faraha badan oo aan macnaha aan la noolnahay. taa maxay keeni kartaa marka qofkii inuu bulshada xaasidnimo uu ku soo celiyo, in uu meelaha qaar guri ayuu soo agmaraya, waxbuu ku soo sawiraya ama wasakh uu ku sameynaya, qof buu dhagax ku tuuraya, mana oga sababta u tuuray, laakiin wuxuu soo bixinayaa xanaaq gudihiisa ku jiro. macnaha si uu u dareemo energy ama uu u helo naftiisa uu u raali geliyo abnormal noqonaya. waxaa dhici karta inuu crime noqdo, in uu dad dilo, in uu macnaha qofkaasi hadhow noqdo qof bulshada macnaha hadhow dhib ku sameynay. isku soo duuduub maxaa loo baahay marka annaga waa inaan hoos ka soo bilowno dhisidda qofkaas Soomaaliga, gabadh ha ahaato, wiil ha ahaato, qof yar ha ahaado, inaan soo dhisno si aan u soo nooleeno marka personality-ga Soomaaliga ama nuxurka qofka Soomaaliga wuxuu ahaan jiray annaga culture-kayga waxa waaye diin, waa dad adagaan ahayn, laakiin dhibaatooyinka iyo rafaadkan ayaa waxay naga dhigeen dad jilicsan oo u nugul marka cudurrada dhimirka. annaga marka taas waxaan sameynaynaa personality-ga Soomaaliga soo celinaynaa, psychological ahaan foundation-kan ka soo dhisaynaa. guri markii la dhisayo haddaanan asaaska la xoojinin guriga ma dhismaya. marka si aan u helno personality adag ama awood leh, waxaan qoys fiican aan soo dhisaynaa si loo helo bulsho caafimaad qabto, si loo helo gabadh hooyo macnaha caafimaad qabto, si loo helo bulsho isku duuban, si aanan loo helin marka abnormal ka aan ku sheegaya ama dad personality-gooda uu xun yahay oo macnaha noqon karo psychopathic personality. taasna waxay noo sii gudbinaysaa qofku marka uu noloshaas uu fahmi waayo in uu waayo waxa ugu weyn oo psychology-ga uu target-ka saaraya waa inuu ka dhimato macnaha rajada, hobbiga inuu ka dhimto. haddii rajo la'aan kugu soo dhacdo waxay noqonaysaa inaad isdishaa imaanayso ama suicide aad isku samayso. hadda way jiraan alxamdulillah aniga cases aan badbaadiyaa jiro, ilaahay badbaadiyay, laakiin aan sabab u ahaa qof inuu warqad ii soo qoray oo ay u xiran tahay inuu isdilo rabay, nin dhalinyaro
alxamdulilah macnaha reasonka aan kuu sheegayay annaga definitionkii psychologigaan u laabanayna si fiican ninkan isdilitaanka isdilaya ma eegayno maxaa ku kalifaan eegaynaa si fiican waxaa dhici karta inuu xanuunsan yahay oo macnaha uu jiro dhib oo maskaxeed ahaan u haysto inuu accidenti galaa dhici karto waxaa jirta hormoonaadaa jiro oo la dhahayo domin oo farxadda ka qayb qaatay inuu ka maqan yahay ma dawaan siinaynaa environmentiga maa saameeyey ma waxaa saameeyey burbur qoys waxaasoo dhan marka waxaan isku soo duduubaynaa ama ha ahaato dhalaan ama hooyada ha ahaato waxaan qeexitaankaas oo dhan u sameynaynaa in aan helno personality awood badan oo caafimaad qabo oo adkaysi leh resilience leh oo go-aamada qaadan karo maskaxdiisana ku kalsoon unconsciouskiisu ay duubayso ama ay record garaynaysa waxyaabaha ah positive-ka marka qof Soomaali ah oo caafimaadkiisu uu full yahay physical emotional inuu yahay iyo in uu mataqaanaa maskax ahaan uu caafimaad qabo behavior maskaxda dhaqanka oo hab dhaqankaagay ay cause garaynaysaa emotionalkaaga hadduu balance garayn wuxuu dhibayaa noloshaada gurigaaga goobta shaqada macnaha caadifadaada maxay tahay haddayna balance garaysnayn qof markuu shaqada soo galay ooyaya ka waran haddii uu nagu ooyo macnaha wax ma duubi karno soo ma sax waa okay waxaa la rabaa marka inay personalitygaaga balance uu yahay waan kuu sheegay culeysaa imaanaya PTSD annaga culeysyo fara badanaan soo marnay post traumatic la dhahaa laakiin psychotherapy aa u baahan tahay waxaa u baahan tahay la talin consultation aa u baahan tahay waxaa u baahan tahay waxaanoo dhan in laga hortago prevention la sameeyo haddii marka psychologiyiinta qofka ama in lagu geeyo maxaa la dhahaa rusheeyo oo maanta dhan biyo lagugu shubo macna ma sameynayso qofkan waxaaba haystaa dhici karta macnaha diagnosis markii loo sameeyo psychological ahaan u xanuunsanaya biyaa igu shubtay biyo maxaan ka faa'iidaya marka meeshan oo biyaha horta ma jira mas'aladan in qofkan uu jin ku dhex jiro jinkaas uu ka dhex qaylina wallahi horta ina sheekh keentiin ay noqonay ana hadda haddaan waxaa galo aniga lafayga dhiiqaan la galaya lugaha laakiin waxaan kuu sheegayaa aniga inta saxda ah wax walba jin inuu jiro iyo in kale wax la inkiri kara ma aha jinka wuu jiraa laakiin inuu qof ka dhex qayliyo laakiin inuu qof ka dhex qayliyo hool weyn waaye hawshaas waxaa gali karo dadka markaa ayaga fieldigan ku takhasusay laakiin waxaan kuu sheegayaa psychological whole psychology in lagu khaldayo mar walba hawshaas oo ay u baahan tahay in la kala saaro aniga xarumo waxaan booqday oo rehabilitation center laakiin dhaqan celin la dhahayo wax badan oo khaldan aan kusoo aragnay laakiin waxay u baahan tahay in dadka lafahooda ayaga xataa la wacyigeliyo marka maxaa u baahanahay marka dadka hadda aan ka hadlayno oo dumarka inaa gabadha moralkeeda la saxo waxa la dhaha jiro moral psychology ama development psychology uu ku jiro oo la dhahay development moral annaga gabadha in oo maantoo dhan gabadha Soomaaliyeed aanan la dhiirigelinin inay ragga ay waxay ka shaqeeyaan ay ka shaqeyn karto in hankeeda kor loo qaado walaalkeed inuu taageero in mataqaana hooyadeed ay support garayso waxaa markaa soo baxaya qof kalsooni leh laakiin haddii ay socialkii oo dhan ay ku yihiin lid ka waran gabadhi waxay noqonaysaa hadhow aggressive ay noqonaysaa in la furo dhib kuma aha waxay dhaysaa safaaradaha noo kala qaad waayo waxaa haysta ayada dhan waxay noqonaysaa qof oo psychopathic personality waxaa ka guuxayo marka qaar waan ku jeclay haddaa dhadii jecel maxaa inay ku dhahdaa laga yaabo waa isisiraysaa anaga caqliga igu wadaa macnaha waxaa la rabaa aan ku reasonka aan u socdo maxay tahay in dad caafimaad qaba aan soo saarno bulshada qaybaheeda kala duwan marka taana ma imaanayso in la iskaashado oo psychologiyiinta iyo psychiatrika iyo bahda media ay iskaashadaan si aan marka waxaan oo dhan ooga hortagno ma dhihi karaa gabdhaha inuu aamini karin qofka waxaa sabab u noqon karo in ayadii gabdhaha badana yani caqligooda maasha Allah uu korsan yahay gabadhii oo caqli fiican leh in yani qof caqligiisa uu liito camal loola macaamilo yani markii lala hadlaayo aan loola hadlin yani si qof sareys ama sidii ay mudneed oo kale okay haddaan si kale u dhigno jawaabta waxa su'aasha waxay noqonaysaa ma lagu eegayaa
in gabadha macnaha la liido saas su'aashaad u dhacaysaa maya in loola gabadha hadlo. markii oo nimanka markay gabadha la macaamilayaan in la dhaho Okay. adiga maxaa la ii sheegay Waxaa ma hadal fahmi kartid. sirsiridoo kale in lagula hadlo Okay. ama yani hadale aysan mudnayn in lagula hadlo taasay keentay marka nin kasta markuu la hadlo inay u maleyso In yani la caqli yare iyo caqli ilmeed inuu lagula hadlayo kale Macnaheeda badan inay waxa dhahaan Soomaalida waaye- caruuraad tihiin macnaheeda waxa waaye in gabadha maskaxdeeda tuhun la gelinayo oo lagula dhaqmayo sida ilmo yar soo ma iyadana ay difaac ku jirto ayadana ay difaac ku jirto waa midaan kuu sheegaya waxa waaye gabadha in aan difaac la gelinin in macnaha anaga backgroundkeena ama culturekeena diin waaye diintana maxay keergaraysay ama ay meel weyn gaarsiisay gabadha sax sax gabadha mar waa hooye marna maxaa waaye marna ninaa ku qabo Marna walaashii wiilka waaye. walaasha waaye marna ilmahaaga aa ku ninka ugu hareereysan Ah. iyadan ugu hareereysan marka gabadha macnaha mar walba way sharfan tahay marka anaga inaan sida uu islaamka u sharfay aan kula dhaqanno waaye ma aha in la liido taa waan kasoo horjeednaa laakiin culturekeena Soomaalida waa run gabdhaha xoogaha way ignore gareeyaan laakiin taana waxaa laga bixinayaa hadda kadib aan isku dayanaa in bulshada laga wacyigeliyo oo ay looga baxo haddii gabadha aan moraalkeeda ama aanan si fiican loo sabot gareenin ama aanan la caawinin waxaa dhacayso hadhow in ay imaado waqti ay gabadha kalsooni darro ku dhacayso ama ay dhahdo in maxaa hadda ku kalifaya gabadha inay cadow badanaan leeyahay dhahdo cadowgeygaan jebinaya tiktok ay soo fariisato mararka qaar ay dharka iska tuurto waxaasoo dhan kalsooni darro waay sababtooy tahay waxa waaye haddii ay heli leed ama markaan ku dhahay emotional balansiga muhiim waaye waxaa dhici karta in la siro gabadha in aabaheed uu jeceyl u muujiyo waaye gabadha oo ayada oo gurigooda ay ka timaado ayada oo macnaha kalsooni qabto laakiin hadda waxaa siri kara wiil ama wuxuu ku ciyaarayaa emotionalka psychological markii la joogo waxa waaye sida biyaha meel biyo lagu shubo oo kale khazaanka amba maxaa la dhahaa hadda meesha biyaha lagu shubo haanta biyaha lagu shubo haanta mar walba ay percentage marayso mar walba ay buuxsamto marka waxaa jiraayo haddii mar walba oo uu biyaha lagu shubay ay yar tahay biyuhu maxay noqonayaan marka gabadha in la taageero emotionalkeeda oo aabaheed uu ka qayb qaato walaalkeed uu ka qayb qaato in ay qurux badan tahay in loo sheego haddii kale waxay aadaysaa meelaha oo la isku soo duro hadda gabdho badan wareeray marka gabadha macnaha waxaa muhiimadda koobaad oo labaad waxa waaye inay familigeeda ay ka heshato wax walba si ay isugu kalsoonaato hooyo fiican ay u noqoto macnaha ay background fiican ay kasoo baxday middaa waxa waaye marka ay dhaxlaysaa in skills la baro sida wiilka wax loo barayo gabdhaha marar badan wiilasha way ka awood badan yihiin way ka adkaysi badan yihiin way ka shaqo badan yihiin laakiin annaga bulshadeena si xun u eegayso taasaa keentay marka inay gabadhiisi yar loo eego waana midda aanan habbooneen psychological ahaana ma fiicno diin ahaana ma fiicno waxa waaye marka isku soo duuduub in aan annaga horay u soconno aan keergareenno aan wacyigelinta sii wadno dhinac walba aan kala dardaaramno si hadhow aan macnaha aan u helno bulsho ama hooyo fiican waayo gabadhaas waxay soo saaraysaa ilmay soo saaraysaa waxa gabdho iyo wiilal soo saaraysa waa iyada oo bulshada hadhow macnaha behavior saxa waana midda macnaha u baahan in aan culeyskaas hooyada marka horeba laga ilaaliyo si aynan ilmaha u dhibin si aynan jaarka u dhibin waxaan ka hadlaynaa hooyooyinka ilmaha sharci darada dhalo isla markiina dilo ama tuuro okay oo gabadh ilma si khaldan u dhashay ma ka hadlaysaa okay hal mar maxaa halkaa noo geysay annaga gabdhaheena si sax ay wax u dhalaan maya bariyahan waxaa magaalada aad ugu badan darada ku dhalayo horta waa howl ethical xiriir la leh inta psychological aan la gaarin laakiin maxay u dilayaan inay taas ma u maleynayo inay aad waxaa u jiro in cunug la dilay lasoo qaado iyo howl diin la leh waaye xiriir sababtay tahay gabadhan howl zinay ku dhashay macnaha taa waxay noqonaysaa maxay sidan ku dhacday diin ahaan maxay saa u samaysay macnaha waa howl diinay faraha la galaysaa iyo ciqaabaha ay la kulmayso laakiin waxaan ku sheegayaa in gabadha la sugo la ilaaliyo macnaha in laga taliyo aayaheeda
in oo markaas familigeedii ay ka hortagaan gabadha maxay waxaan ugu dhacday qasab waxaa jiro gaab waxaa jiraya tii aan hadda ka hadlayo macnaha psychological ahaan inaysan helin jaceyl ku filan inaysan helin dad ka dambeeyo macnaha haddii uu jirto inta u badan environment fiican ama aabba iyo hooyo ka dambeeyo gabadha waxaas inay sameynayso ma u maleynayo marka haddii ay dhacdo oy saa sameysana khalad weyn waaye macnaha dembi kale waxaa jiro ciyaal oo ayagoo sharci darro lagu dhalay ee korsadaan oo maamooyinka la dhaho cunugan sharci darro ku dhashay sidiisana ay ku haysato iyo ilmo la dilaa jiraan hadda zaid usoo badatay in xaafadaha ilmo lasoo dhigo in cunug bacmadow ku xiran meel laga soo bixiyo taa macnaha waxa waaye in bulshada dib loogu laabto maxaa waxaan koosgareeyay guurka ma qaali ah macnaha guurkana qaali ma aha Soomaaliya marka waxaa dhici karta inay darooga ay macnaha qof caadi ah waxaas ma sameyn karo يعني نفسيا يعني سامين ما يكون هذا يعني إن عنقي ده شيء إديشو والله معناها قصب لكن psychological أهان إنا المن كان psychological أهان قبل أنو حنوصلت علم حراني دله تاس عقل ما تاس عقل ما لكن علمها حراني نديشو وحن مركي سميسو قصب وحول بقى خلدن أو سميسو effective كويه لنا يا هديب الدرامة سواء قف كان markaas macnaha damiir la'aan jira maaho hadhow damiirkiisa soo kacayo inay waxaan u sameeyay dhibay ku tahay qasab marka psychological ahaan caafimaad darro dareemaya inuu qof xun oo yahay oo aan la jecleen u dareemaya in qof nolosha aan laga rabin inuu yahay dareemaya kadib marka waxa soo baxaysa qof inuu uu noqdo xataa abnormal oo dadka dilo ama uu isdilo ama uu dhibaato sameeyo sababtoo tahay wuxuu mar walba dareemayaa macnaha stigma oo ah muxuu waxaan u sameeyay muxuu u sii dilay macnaha wax aad u dhib badan waaye psychological ahaan dhib badana meeshaas ku jiro diin ahaan wax qaldan waa aad dankan hooyooyinka oo maxaa la sheegay waxa tilmaantay in hooyada markay uur leedahay xaalad badan ay la kulanto markii ay dhashana kadib xaalado kale ay la kulanto maxay la kulmi kartaa markay uurka leedahay wallahi hooyada uurka markay tahay waa dareemi kartaa waxa isbedelayo hormoonaadka gabadha ay isbedelayo ilma caloosha ugu jiro marka qofkan qof ma aha macnaha qofkii aan garanaynay ma aha marka wuxuu u baahan yahay wax walba oo macnaha xataa nervous uu noqonaya qaar dadka qaar hooyooyinka qaar waxa ku dhacayo in ay pressure-kooda kor u kaco qaar waxa ku dhacayo in ay depression xataa ay ka qaadaan qaar waxaa ku dhici karo in fabio ay ka qabto ilmahan si caadi u soo bixi doona operation ma lagu sameeyo markaas waxaa loo baahan in la keer gareeyo hooyada in hooyada markaa loo fidiyo service aynan ku dareemin culeysyadan oo culeysyada laga yareeyo oo waxay rabtana loo keeno la isku dayo in la ilaawsiyo marka culeyskan ay ku jirto haddii ilmo ay jiraan macnaha oo ka horeeyay ilmaha laga heeyo la support gareeyo moralkeeda kor loo qaado la isku dayo in ay xaaladda macnaha ay ku jirto oo weaknesska ay ku dareemayso in la yareeyo si ay macnaha hooyadaas ilmaha ku jira lafiis wuxuu u baahan yahay in la keer gareeyo waayo qaylida hadda environmentiga markuu ku jiro ilmaha caloosha intuusan imaanin xataa wuu dareemaya wuu maqlaya marka waa inuu meel uu ku sugan yahay loo diyaariyo jawi degan laga ilaaliyo wax walba oo keeni karo inay culays dareemto way culaysyo badan ay dareemi kartaa haddii kale waxa waaye oo xataa dhiig yariyay dareemi kartaa waa in fitamiinaad la siiyo waa in maaragtay cunooyinka qaar xataa lala socdo si gabadha macnaha loo caafimaadkeeda loola tacaalo ama ay u dareemto in ay maaragtay caafimaad qabto دكتور ما سنتهاي برنامج كمركي لقى هاد لا حنونة دمر ككله برنامج أدو بلارن واي دكتوركم ورجينا إن مرر بدن ونلجوا بدونه ونلقي بقادن دونه أدنى حن كأجمع هاد علينا وقتي هذا قروح هذا بدن أديكو الشقة ذي وحاجي وقت نوصه هوري أو وقت نسيه تاس وحيته وحن أد كأجمع هاد علينا تعود ذي كنا برنامج كنا حلقة ذينا ما أنت هل كان ينوجو اكتهاي كنت دنبو والسلام عليكم.